Wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha iyo sheekooyinka ay qorayaan wargeysyada ka faallooda kubadda cagta. Waxyaabaha aynu soo qaadi karnana waxaa ka mid ah Declan Rice iyo David Moyes oo laga ganaaxayo kooxda kubadda cagta West Ham iyo wixii ay bi'iyeen. Waxaan sidoo kale eegi doonaa Mesut Ozil oo la xaqiijiyay waxa uu noqon doono marka uu ciyaaraha ka fariisto amaba shaqada uu qaban doono marka uu ka fariisto ciyaarista kubadda cagta. Waxaan sidoo kale eegi doonaa faahfaahin ku aadan heshiiska uu Sadio Mane ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Sheekooyinkaas ayaad daawan doontaan daqiiqadaha soo aadan, balse saaxiibayaal intaan sii guda gelin muuqaalkan waxaan idinka dalbanaynaa inaad like inoo saartaan muuqaalkan. Saaxiibada cusub ee markii ugu horreysay soo booqanaya barteena YouTube-kan waxaan leenahay soo dhawaada oo subscribe inoo saara barteena. Mahadsanidin. Aynu ku horreynay kooxda kubadda cagta West Ham ayaa laga ganaaxayaa ciyaaryahankeeda la yiraahdo Declan Rice iyo sidoo kale tababaraheeda David Moyes. Haddii aan ku horeyno Declan Rice waxaa laga ganaaxi doonaa West Ham labada kulan ee ugu horeeya ciyaaraha Yurub oo ay ciyaarayaan xilli ciyaareedka cusub ee 2022-2023 kadib markii kabtanku uu aflagaadeeyay garsooraha ciyaartii ugu dambeysay ee tartan Yurub ah oo markaa ciyaaryahankani uu kasoo muuqdo, waxaana uu ku sheegay garsooraha laaluush qaate sida warbixinadu ay tilmaamayaan. Wargeyska Daily Mail ee kasoo baxay Ingiriiska waxa uu warinayaa in Declan Rice ay kaamirooyinku soo qabteen isagoo dusmada garoonka markaa la taagan garsooraha ciyaarta kulankii lugta labaad ee semifinalka Europa League oo markaa guuldarada ay kala kulmeen Frankfurt, isla markaana ku aflagaadeynaya in qiyaastii uu qaatay laaluush ama lacag uu qaatay. Waxaana taasi ay ka dhigan tahay in Declan Rice la ganaaxi doono 2 kulan oo tartamada Yuruba. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay in laacibkan qadka dhexe la ciqaabi doono isla markaana uusan ciyaari doonin 2 kulan ee soo aadan oo kooxdiisu ay ciyaareyso xilli ciyaareedka soo aadan tartamada Yurub gaar ahaan UEFA Nations League. Dhinaca kalena macalinka kooxdaas ee David Moyes ayaa isaguna 1 kulan la ganaaxay kadib markii tababaraha kooxda la yiraahdo Hammers red card loo taagay markii uu kubad ku laaday wiilasha markaasi kubadaha kasoo qabta garoonka. Taasi waxay ka dhigan tahay in David Moyes isagana 1 kulan la ganaaxi doono. Marka sidaas ayay West Ham ku weyn doontaa 1 kulan tababaraheeda, 2 kulanna kabtankeeda Declan Rice. Dhinaca kalena Mesut Ozil ayaa la soo warinayaa shaqada kale ee uu qaban doono marka uu ka fariisto kubadda cagta. Wakiilka ciyaaryahankan ayaa shaaca ka qaaday in xirfad cusub uu yeelan doono Mesut Ozil marka uu ka fariisto ciyaarista kubadda cagta. Laacibkii hore ee qadka dhexe ee Arsenal Mesut Ozil wakiilkiisu waxa uu rumaysan yahay in 33 sano jirkan uu noqon doono gamer ama mid ciyaar gacmeedyada, isla markaana uu ciyaari doono ciyaar gacmeedyada marka uu soo gabagabeeyay xirfadiisa ciyaarista kubadda cagta. Xidigan la yiraahdo Mesut Ozil ayaa sanado badan ka soo ciyaaray qaaradda Yurub isagoo soo metelay kooxaha ay ku jiraan Arsenal, Real Madrid iyo Werder Bremen. Xidiga xulka qaranka Jarmalka ayaa hadda u ciyaara kooxda Turkiga ee Fenerbahce isagoo u saftay 25 kulan isla markaana u dhaliyay 8 gool, 2 caawinna u sameeyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Haddaba wakiilka ciyaaryahankan ninka la yiraahdo Dr. Erkat Zagat ayaa markaasi ka waramay xaaladda Mesut Ozil, waxaana uu sheegay in uu noqon doono gamer ama mid ciyaar gacmeedyada sida PlayStation-ka oo kale, isla markaana halkaasi caan ka noqdo mar kale marka uu ka fariisto ciyaarista kubadda cagta. Isagoo la hadlayay jaradda la yiraahdo Telegraph, wakiilka ciyaaryahan Ozil waxa uu sheegay in uu markaasi aadi doono dhinaca e-sports isla markaana uu nafsadiisa mar waliba ciyaaro uuna noqon doono gamer ciyaara e-sports. Markana bal aan eegna faahfaahin ku aadan heshiiska Sadio Mane ugu biiray kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee wadanka Jarmalka. Liverpool ayaa ogolaatay in ay 40 milyan oo euro oo u dhiganta 35.1 milyan oo markaa ganiga sterlinka ah ay ku iibiso ciyaaryahan Sadio Mane isla markaana ka gado kooxda xafidanaysa horyaalka Bundesliga Jarmalka ee Bayern Munich. Reds ayaa markaa 32 milyan oo euro oo cash ah oo u dhiganta 27.4 milyan oo ganiga sterlinka si toos ah u qaadan doonta 6 milyan oo eurona. Waxaa markaa ay ku xirnaan doonaan bandhiga ciyaaryahankan uu sameeyo iyadoo 3 milyan oo kalena ay kooxda Jarmalku dhiibi doonto marka uu kooxda abaalmarino ama koobab kula guuleysto. Liverpool ayaa horey hoos ugu dhigtay dalabyo markaa 2 ah oo ay kasoo gudbisay xidigan Sadio Mane kooxda kubadda cagta Bayern Munich ka hor inta aysan labada kooxood mar kale ka wada hadlin shalayto saxiixa 30 sano jirkan oo markaa la isku afgartay. Waxa uu kooxda Liverpool ugu soo biiray 31 milyan oo ganiga sterlinka ah iyo lacag kale oo markaa gadaal ka raacaysa
oo ahayd 2.5 milyan oo geni kadib markii ay kala soo wareegeen naadiga Southampton sanadkii 2016. tan iyo markaas Sadio Mane waxa markaa uu dhaliyay 90 gool oo horyaalka Premier League ah isagoo markaa matalaya kooxda ka arrimisa Anfield, waxaana xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu ku dhameystay isagoo markaa 23 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Liverpool dhammaan tartamada oo dhan. heshiiskaasi markii la gaaray kadib, agaasimaha ciyaaraha kooxda Bayern Munich ayaa warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan Ingiriiska, Sadio Mane waa uu imaanayaa Bayern Munich, taasoo ka dhigan in wax waliba ay isku dhamaadeen, keliyana uu harsan yahay in Mane uu tago kooxda Jarmalka lana soo bandhigo. haddaba weeraryahanadii halista ahaa ee Mohamed Salah, Roberto Firmino iyo Sadio Mane ayaa markaa kala tegay iyagoo markaa u dhaliyay kooxda 338 gool 5 xilli ciyaareed oo ay si wada jir ugu ciyaarayeen kooxda Reds. Mohamed Salah ayaa dhaliyay 156 gool waxaana uu u sameeyay naadiga Liverpool 5taasi xilli ciyaareed oo ay wada dheelayeen Sadio Mane 55 caawin. Roberto Firmino ayaa 75 gool dhaliyay muddadaas, 49 caawinna u sameeyay Liverpool. Mane laftiisu waxa uu markaasi dhaliyay 107 gool, 30 caawinna uu u sameeyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. hadda sheekadaasi waa ay soo dhamaatay oo Mane waa uu baxayaa waxaana uu ku biirayaa kooxda Jarmalka ee Bayern Munich. dhinaca kalena waxaa lagu soo waramayaa in Frenkie de Jong uu markaasi alaabtiisa ka urursaday xarunta tababarka ee kooxda Barcelona xilli la isla dhexmarayay inuu ka tagayo naadiga. xidigan qadka dhexe oo 25 sano jir ah ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu u wareegayo dhinaca Manchester United iyo horyaalka Premier League Ingiriiska bilihii ugu dambeeyay. tababaraha cusub ee kooxda United Erik ten Hag ayaa doonaya in uu dib ula midoobo xidigan kadib markii ay guulo kusoo wada gaareen naadiga Ajax ee wadanka Holland. si kastaba ha ahaatee, kooxda Barcelona ayaa filanaysa inay 80 milyan oo geni ku hesho iibka xidigan qadka dhexe ee reer Holland. Red Devils ayaa durba laga soo diiday dalab 60 milyan oo geni ku kacayay oo ay ka gudbiyeen Frenkie de Jong, laakiin waxaa ka go'an inay wada hadalladu sii socdaan ilaa inta laga gaarayo heshiis marka xidigan reer Holland uu ugu wareegayo garoonka Old Trafford. haatan de Jong ayaa bixiyay tilmaan cad oo muujinaysa in uu markaa isaga tagayo garoonka Camp Nou xagaagan. Jarrada AS ee ka soo baxday Spain ayaa markaasi warinaysa in alaabtiisa uu ka qaatay xarunta tababarka ee kooxda Barcelona, waana tallaabo ay qaadaan kaliya ciyaartooyda filanaya inay ka tagayaan kooxdooda. waxa uu sidoo kale diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada uu ku baxayo iyadoo Manchester United ay tahay kooxda kaliya ee xiiseynaysa saxiixiisa. horaantii toddobaadkan waxa uu qartay in uu la dhacay xiisaha Erik ten Hag iyo kooxdiisa cusub. maalintii Talaadadii waxa uu yiri, mar waliba waad la dhacaysaa marka ay kooxuhu ku soo bandhigaan xiisahooda. inkastoo shayaadiinta cascas kooxda lagu neenaaso ay bartilmaameedkooda koowaad ka dhiganayeen de Jong, haddana waxay sidoo kale doonayaan in ay xoojiyaan boosaskooda kale ee ay ka liitaan, laakiin waxa ay u muuqataa in awoodooda ay marka hore isugu geynayaan sidii ay garoonka Old Trafford ku keeni lahaayeen ciyaaryahankan la yiraahdo Frenkie de Jong. ten Hag ayaa sidoo kale raba in uu la midoobo xidiga garabka ka ciyaara ee ka tirsan kooxda Ajax ninka la yiraahdo Anthony, kaasoo ku qiimeysan 51 milyan oo ganiga sterling ah. waad ku mahadsantahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. waxaan ku xusuusinaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan adigoo mahadsan. saaxiibada cusubna oo markii ugu horreysay soo booqanaya barteena YouTube-ka waxaan leenahay soo dhawaada oo subscribe inoo saara barteena si aad u heshaan warbixinada la xiriira ciyaaraha kubadda cagta. waxaan ahay Haroon Yuusuf Khasaaro. intaan muuqaal kale dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.